kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha VOA sanad wacan oo wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal qodobada aan idinku hayno barnaamijkeenna toddobaadkanna waxaa ka mid ah warbixin aanu ka diyaarinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkii dhammaaday ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamkaba gaari bas oo ku shaqeeya tamarta qorraxda kuna qalabaysan kombiyuutar oo fursad waxbarasho u fidiya danyarta degan xaafadaha isku raranta ee Nairobi kuwaasina waa qaar ka mid ah kooxda xidigaha geeska oo inoo haya heesa aanu idinku talagalnay munaasabada sanadka cusub ee 2015 aawadeed qaybta dambe ee barnaamijka ayaanad kaga bogan doontaan aan ku bilownay dunida waxa sanadkii dhamaaday ee 2014 ka dhacay dhacdooyin fara badan oo dhinacyo badan ka saameeyay dadyowga caalamka haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo caalamkaba ka dhacay waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan haddii aynu ku hormarno Soomaaliya waxaa dhacay dhacdooyin kala duwan dhinaca amniga dhacdooyinkii dhacay sanadkii dhamaaday 2014 waxaa ka mid ahaa dabley ka tirsan ururka al-shabaab ayaa min 2 jeer oo isxiga waxa ay weerar ku qaadeen oo ay gudaha u galeen xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo waliba xarunta baarlamaanka ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 2 jeerba ka maqnaa Villa Soomaaliya maruu haddaba nagu soo booqday daarta VOA bishii August ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay aragtidiisa weeraradii lagu qaaday Villa Soomaaliya aniga aqalka Villa Soomaaliya la soo weeraray dib badan aniga ugu haydo laana Villa Soomaaliya ciidan ay leedahay amniye leedahay aday leedahay taas marka hay'adda dhammaan dawladdu u xilsaartay amnigeeda oo sugaana wayna proof gareeyaan in amnigeedu sugan yahay oo way soo gaari kari waayeen meeshii ay rabeen iyo muhiimadii ay lahaayeen marka laakiin midaan kale aad iyo aad u xanuun badan tahay xildhibaanada saaxiibada ah oo garanayo oo qaarkood nolol fiican oo adduunyada iyo meelo kala duwan ay ku haysteen uga soo baxay oo uga soo tagay in ay Soomaaliya wax ka bedelaan wax ku biiriyaan in ay dhintaan oo waliba gacantaas ay ku dhintaan aad iyo aad u xanuun badan tahay aadaan uga xunnahay runtii weeraradii abaabulnaa ee al-shabaab ay Muqdisho ka fulisay waxaa sanadkii dhamaaday ku dhintay xildhibaano wariyaal aqoon-yahano iyo dad rayid ah dadka dhintay waxa ku jirtay Saada Cali Warsame oo ka tirsanayd baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena ka mid ahayd fanaaniinta waaweyn ee Soomaalida dhacdooyinkii dhinaca amniga ee sanadkii 2014 ka dhacay Soomaaliya waxa kale oo ka mid ahaa bishii September diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeyn ku dilay hogaamiyihii ururka al-shabaab Axmed Cabdi Godane sidoo kale Mareykanku waxay toddobaadkii hore duqeyn ku dileen Cabdishakuur Tahliil oo ahaa taliyihii sirdoonka al-shabaab dawladda Soomaaliya waxay qabatay sidoo kale taliye kale oo ka tirsanaa al-shabaab oo lagu magacaabo Sakariya Ismaaciil ururka al-shabaab waxa uu sanadkii hore ee 2014 waayay dhul badan oo ay ku jirtay xaruntoodii ugu weyneed ee Baraawe al-shabaab ayaa sidoo kale sanadkii dhamaaday waxay geysteen weeraro lagu dilay ilaa 60 qof oo u dhashay Kenya kuwaas oo ka dhacay agagaarka magaalada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya dhinaca siyaasadda Soomaaliya sanadkii 2014 waxaa ka dhacay isbedel siyaasadeed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihii hore ayaa isku dhacay waxayna keentay in ra'iisul wasaarihii hore Cabdiwali uu waayo kalsoonidii baarlamaanka bilowgii December tirada ogolaatay mooshin kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxay noqotay 153 tirada mooshinka oo diiday waxa weeyaan 80 tirada ka aamusayna waa 2 sidaa darteed golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka wuxuu oggolaaday mooshinka kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed iyo xukuumadda madaxweynaha ayaa ra'iisul wasaare saddexaad u soo magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo xilkaasi mar hore soo qabtay Ukraine waxaa ka dhacay xiisado keenay in madaxweynihii hore ee Ruushku taageersanaa xilka uu ka dego gobolka Crimea ee bariga Ukraine waxa uu u codeeyay inuu Ukraine ka go'o oo uu Ruushka ku biiro dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacay caalamka sanadkii 2014 ee sida weyn warbaahinta caalamka u qaada dhigtay ayaa waxaa ka mid ahaa soo shaabixida ururka Daesh ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq
isla bariga dhexe ayaanu ku jirnay 2014 waxaa ka dhacay dhacdooyin sida doorashada taliyaha ciidamada Masar General Cabdifataax Siisi loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Masar. dhinaca Afrika gaar ahaan saxaaraha Afrikada ka hooseysa waxaa 2014 ugu weynaa dhacdooyinka soo maray cudurka Ebola oo ka soo laba kacleeyay kana dilaacay galbeedka qaaradda Afrika. WHO ayaa sheegaysa in iminka ay tirada dhimashadu marayso in ku dhow 7,900 qof waxaana ilaa xilligan cudurka la ildaran in ka badan 20,000 qof. dhinaca dalkan Mareykanka oo ah dalka ay siyaasadiisu saameynta badan ku leedahay dunida waxaa sanadkii hore ka dhacay doorashadii xilliga dhexe ee labada aqal ee Koongareeska taasi oo loo dareeray 4 November. Tonight we shook up the Senate. You shook up the Senate. xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka ayaa ku guulaystay aqlabiyadda aqalka senadka iyagoo horey u maamulayay aqalka hoose. isla dalkan Mareykanka waxaa 2014 hadheeyay qulqulatooyin iyo dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalkan oo looga soo horjeeday dilal ay ciidamada boolisku u geysteen dad madow ah oo ka kala dhacay magaalooyinka Ferguson iyo New York. dhinaca socdaalka hawada sanadkan dhammaaday ee 2014 waxaa dhacay shilal diyaaradeed oo saameyn weyn reebay. shirkadda Malaysia Airlines ayaa 2 diyaaradood ay lahayd midna la waayay bishii March oo ay saarnaayeen 239 qof halka mid kalena lagu soo riday bariga Ukraine. sidoo kale diyaarad kale oo ay leedahay shirkadda Air Asia oo fadhigeedu yahay Malaysia ayaa sanadkii dhammaaday ee 2014 la waayay iyada oo markii dambe burburkeedii laga helay badda Indonesia. diyaaraddaasina waxay siday 162 qof. waxay noo soo socda heesaanu idinku tala galnay sanadka cusub ee 2015 haatase Nairobi. xaafadda Kawangaara ee magaalada Nairobi waa mid ka mid ah xaafadaha isku raranta ah ee sii ballaaranaya. waxaa ku nool 300,000 oo qof oo ku nool wax ka yar $1 maalintiiba. haddaba waxaa taga xaafadaasi gaari bas ah oo ku qalabaysan 12 kombiyuutar oo tamarta cadceedda ku shaqeeya kaasi oo fursad waxbarasho u fidiya qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee xaafadaasi. Leni Ruvaga ayaa warbixintan soo diray, Cabdiraxmaan Furre ayaana soo jeedinaya. Alan Madifa ayaa dhex mushaaxaya kombiyuutarka. wiilkani waa 20 jir waxa uuna ka mid yahay 20 arday oo xirfadaha kombiyuutarka ee asaasiga la baro. ku dhawaad 3 bilood ayuu Madifa qaadanaya cashiro maalmeed lacag la'aan ah. hooyadiis ayaa maalintii hesha wax ka yar $2 iyadoo dharka u dhaqda reeraha magaalada. tababarkan oo kale ayaan caadiyan ku kacaya lacag dhan $100. Madifa ayaa sheegay inuu hal mar oo qura bixiyay lacag 2.20 senti ahayd. baruhu waa nin aad u furfuran oo saaxiib ah wuxuuna awood noo siiyaa inaan wax badan ka fahanno. lacagta wax lagu baranayo ma aha mid badan, waa 200 oo shilin oo keliya marka la barbar dhigo dugsiyada kale. mashruucan wuxuu awood noo siinayaa inaannu yeelano xirfado kombiyuutar. mu'asasada Craft Silicon ayaa bilaabay inuu waxbarashada lacag la'aanta ah ee kombiyuutarka ugu yabooho dhalinyaradan aan awoodin inay dugsiyada caadiga tagaan 5 sannadood ka hor. tababarkan ayaa qaadanaya 10 toddobaad. haddii ardaydu ay ku aflaxaan imtixaanka kama dambaystana waxay helayaan shahaado qalinjabina. waxa ugu xiisaha badan ayaasan ahayn in ardaydani aysan iskiil caadi ah wax ku baranayn fasalka. waa bas lagu qalabeeyay 12 kombiyuutar iyo qalabka tamarta cadceedda ku shaqeeya. baskan oo qiimihiisu ku kacayo $100,000 ayaa waxa uu waxbaray ilaa iyo haatan ku dhawaad 10,000 oo arday. aniga madaxa ka ah Kamal Buda Bahatia. Education is still a luxury at some of these slums. aqoontu weli waa horseedka nolol raaxa leh oo basiibooyinkan oo kale. marka waxaan aaminsanahay inaan tagno meelaha sidan oo kale ah ee dadka saboolka aysan heli karin fursad waxbarasho oo dhinaca teknolojiyadda ah. dowladda Kenya ayaa sidoo kale qorsheynaysa inay kordhiso aqoonta internetka iyo kombiyuutarka iyadoo bixinaysa khad internet oo lacag la'aan ah sanadka marka la gaaro 2015 gaar ahaan deegaano ku yaala magaalada caasimadda ee dalka Kenya Nairobi.
saaray sheekada xiiso badan bay ahayd bas guuraya oo dadkii wax baraya xaafadaha isku raranta magaalada Nairobi waaba fasal soconaya laakiin daawadayaasheena waxaan u haynaa heese xiiso badan oo sanadkan ugu talagalnay laakiin intaan gaarin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal barnaamijkii caweyska Washington ee VOA-da ka baxayay sanadka 2014 ka soo waday ee dhamaaday bal wixii kugu xiiso badnaa ee barnaamijka aad kala kulantay ama aad sheeko ku soo qaadatay colaadow barnaamijka sheekooyin badan oo qosol badan baa toddobaad kasta nagu soo maray laakiin sheekada aan xusi karaa waxay tahay dalka South Sudan mid ka mid ah dhageystayaasha sheeko uu nala wadaagay waxa la sheegay nin dhintay oo wali laakiin caruur dhalaya sidoo ku dhalaya markaa ninkaasi waxa la yiri hadii uu dhinto oo gabadha uu dumaala ninka walaalkii caruurtii dhalatay ninka geeridiisa kadib lama oranayo ninkan dambe gabadha guursaday baa dhalay laakiin waxa la oranayaa ilmo hebelkaasna waa ninkii hore ee dhintay marka sidaa bay ilmihii dhaxal buu ku yeelanayay isagoo qabriga ku jiro wali caruur u dhalanaysa waa sheekada xiiso badan sahray haddaba waxaan daawadayaasheena sanadka cusub ee 2015 dartiis u soo xulaynaa codka fanaanka Maxamed BK oo ku luuqeynaya heesta la yiraahdo Suqra waan ku doorto inta dumar marxidatiyo inta dunida joogtaba intanadiga ugu xidhay dayackaaga maan tegin dantu maalinkuma qaban ibindaawiyayace dilmadana kacaagani dayackaaga maan tegin dantu maalinkuma qaban ibindaawiyayace dilmadana kacaagani dawadii naftayda dooqaygii baa tahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay anna waadi deeqdo dadkan kuugu jecelahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay dawadii naftayda dooqaygii baa tahay يا سلام هس في عنا يهيد هس تاسين تهدين كوسو دافنا colaado adiga la fahantaada sanadkii 2014 ee dhamaaday sheekooyinkii kuugu yaabka badnaa aad xasuusataa ama ka qosliyay sahray haddaan mid ka xasuusto isla barnaamijkii caweyska Washington ee hadda ka hadlaysay ayaa sheeko xiiso badan oo aan kala qayb qaatan xasuustaa oo ahayd magaalo ku taala dalka Brazil oo haweenka qura ay leeyihiin oo ragga laga mamnuucay marka magaaladii rag dumarka ka taliya iyaga ka shaqeeya iyaga ku nool marka waxay u baahdeen rag ka shaqeeya maalintii xafiisyada dawladda laakiin waxa ragga laga mamnuucay habeenkii halka ku hoydaan oo tuuladu ay ka baxayaan markii gobolku dhaco marba haddaan raggii ka warhaynin shaqada ay qabanayaan iyagu baa iska daalay sheekada igu yaab badneed intii caweyska waan gartay colaado aad baad u mahadsan tahay balana noo soo qabto heestii labaad ee aynu ugu talagalnay daawadayaasha sanadka cusub ee 2015 awgeed waxa soo qabanaya fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeyo iyo heesta la yiraahdo ragaba haliyeygan ka doorto ragaba haliyeygan ka doorto adanku heesaya iga wanku haya adiyo korban adiku haysha
halkeenba hareertuu ka jiro hagoogtaysaan ka qaadno sidii nirigiyo hashiid macaan ma isku soo يا سلام heestaasi waxa ugu dambeysay barnaamijkeenii qubanaha VOA ee toddobaadkan heestaasi iyo barnaamijka oo dhan waxaad kaga bogan kartaan qubanaha oo aad ka heli kartaan website-keena voasomali.com ama bagga aan ku leenahay Facebook iyo Twitter-ka wixii fikir ahna noogu soo hagaajiya qubanaha@voanews.com haddaba intaynu toddobaadka dambe dib u kulmi doono waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo sanad wacan oo wanaagsan